idin salaamayaa asxaabta ku xiran channelka Cabdi Alto. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markaaga ugu horeysay subscribe noo saar si aad noo dhiirigeliso oon warar kale aan idinkugu soo gudbino. Waana mahadsantiin. Wararka caawa ugu dambeeyay ayaa ah showgii Cawaale Aadan ee ka dhacayay magaalada Düsseldorf ee dalka Jarmalka ayaa ku soo dhamaaday qaab fashil ah. waxaana loo aaneynayaa sababta uu fashil ugu dhamaaday inay ahayd nidaam xumi darteeda kadib markii dad aad iyo aad u fara badan ay soo buuxiyeen hoolka showga hortiisa iyo banaanka, halkaasoo dadkii qaab aan caadi ahayn u yimaadeen ayagoo doonayo in ay galaan lacagtana baxsadaan. ayaa waxaa dhacday in maamulka meesha maamul xumi darteeda oo aysan haysanin khibrad ku filan xagga lacag aruurinta iyo dadkii oo aad u imaaday, sababtaas oo ah ayay ahayd waxa ugu horeeya ee ka imaaday dhibta. waxaana meesha yimaaday booliis kadib markii dagaal ka dhacay oo dadkii lacagihii laga aruurin waayey, fanaankina gudaha ku jiro, dadkina qabow iyo dhaxan banaanka ku qabatay. marka ayaa waxaa dhacday in xoog meesha ay ku galeen, sidaa darteeda booliis loo wacay, booliiskii yimaaday, dadkina banaanka loo wada saaray. sida arkaysaan dadkan waxaa saaraya booliiska oo ka hor dhaqaajinaya showga hortiisa, halkaasoo xataa dadkii gawaaridii u taalay ee baarkinka la diiday xataa inay qaataan oo la yiri caawada iska baxa, tareenka raaca, beritoona ahaanaysa insha Allah gawaaridiina soo doonta. waxaan aad uga xunnahay dadkii ka yimaaday Yurubta kale sida Faransiiska, Austria iyo Holland. aad ba uga xunnahay ee doonayay inay showgan si nabad ah magaranaysaa uu ugu dhaco ay waqti fiican u qaataan, laakiin showgii fashilka dhacay iyo dagaalkii dartiisa u suurtageli weysay ee caawana wadada ku noqday autobanka. aad baan uga xunnahay iyo dhammaan dadka kale ee Jarmalkaba, laakiin ma aysan ahayn wax dagaal ah oo dadka ay sameeyeen shacabka, laakiin waxay ahayd maamul xumo darteeda oo xagga albaabka lacagta lagu qaadayay si nidaam ah oo aysan lacagta loo qaadaynin, oo hal qof oo kaliya uu taagnaa qaybta lacag qaadista, qofkaasoon wixii dhan isku wada qaban karin. security-ga meesha oo dad carab ahaa oo af Soomaaliga aan garanaynin iyo dadkii oo isku wareeray, dadkii oo meesha aad u soo buuxiyey maadaama Cawaale uu yahay fanaan caan dhale oo legend ah oo gayga Soomaaliya dhan laga yaqaano. sidaa darteed ayay dadka Soomaalida aad iyo aad meesha u yimaadeen. halka arkaysa waa hoolka hortiisa, markaan waa markii booliiska uu yimaaday ee dadka xataa waxaa dhacday dad aad u tiro yar oo aan dhammayn 30 qof oo gudaha galay in ayaga naftirkooda la soo saaray oo la yiri showga halkaasuu ku dhammaaday. showgii socday muddo 30 daqiiqo, waa 30 daqiiqo oo kaliya inta muddada uu socday showga oo dhan dadkii sidaasaa loo soo saaray. xitaa inta lacagta bixisay 30 qof ee gudaha ku jirtay baa la soo saaray. xataa waxaa la soo saaray fanaankii Cawaale oo asan lagu yiri iska hooyo. meesha waxaa ka dhacday caawada arrin aad u foolxun oo reer Germany marka horeba xanta ayaa waxay ahayd in Jarmalka showyada ay ku dhamaadaan fashil, dagaal iyo fowdo ku dhamaadaan. caawadana maba ku sii jirto, showgu wuxuu socday muddo 30 daqiiqo oo kaliya, inta gashayna waxay ahayd dad 30 qof gaaraya. inta banaanka joogtay ayaa ahayd in ka badan 500 oo qof ayaa banaanka joogtay. aad iyo aad ayaan uga xunnahay waxa caawa meesha ka dhacay haddaan nahay dadka Jarmalka. waana ka raali gelinaynaa dhammaan intii meelo fog ka yimaaday iyo in walbo. marka waad mahadsantihiin. inta channelka daawanayso waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe-ta ii saartaan mar kale. waana mahadsantihiin. daawasho wacan.
عبد الرحيم